farxad weyn bay noo tahay waxaan soo bandhigaynaa 24 heertayeed oo qaranku yeelan doono marka heertayeedku waxa weeyaan document si is ogol ah lagu sameeyay oo ay ka qayb qaateen daneeyayaasha uu saameyn doono heertayeedku sida arrimaha bulshada ganacsatada warshadleyda heertayeedku waxa uu qeexayaa alaabta tayadeeda haddii aan idinla wadaago waxa ay tahay faa'iidooyinka laga helayo heertayeedyada aan soo bandhigayno 24 bisha waxa kamid ah faa'iidooyinkooda inay fudaydin doonaan ganacsiga wadamada dariska ah sidoo kale waxay fudaydin doonaan ganacsiga caalamka oo alaabtaadu haddii ay tagto wadankeena ka baxsan si fudud ay ku gali doontaa maadaama uu heertayeed international ama regional aad isticmaashay waxa kale oo kamid ah dadka consumerska ee wadankeena alaabta soo gashay iibsanaya inay kalsooni ku qabin doonaan alaabta ay iibsan doonaan farxad weyn waxaa noo ah annagoo gudanayna xeerka hay'adda dhowrista tayada ee xeer number 68/2014 oo qodobkiisa 24aad 25aad 26aad iyo 27aad iyo 28aad ba ay dhigayaan sidii hay'addu ay u soo saari lahayd heertayeedo ama standards wax lagu cabiro wax lagu qiimeeyo shaygan aanu baadhayno aanu ku qiyaasno ganacsataduna ay u ogaadaan shayga ay dalka keenayaan ama ay dalka wax ka soo saarayaan inaanu heerka ka hooseynin marka waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa cid kasta oo ka soo qayb qaadatay diyaarinta heertayeedkan waxay soo mareen marxalado kala duwan oo waxaa soo diyaariyay guddiyo farsamo ama waxa la yiraahdo technical committees for standards development guddiyo farsamo oo diyaarinayay heertayeedadan si heertayeedkani uu noqdo mid waafaqsan heertayeedada caalamiga ah marka hore mar labaadka waafaqsan heertayeedada mandaqada ama gobolkaynu ku noolahay waayo halbeeg kasta oo heertayeedka ku jira saameyn wuxuu ku leeyahay qiimaha shaygaas wuxuu saameyn ku leeyahay qiimaha uu ku imanayo dalka iyo hadhow bulshadii waxa ay ku iibsanayso marka shay kasta heertayeed kasta wuxuu leeyahay halbeeg lagu baarayo haday tahay baaristii shaybaarka iyo haday tahay baaristii kale inspectionkii marka uu dalka soo galayo si aanu uga hooseynin muxuu ahaa halbeegaas la isla qaatay ee ah mid caalami imikana ah mid u gaar ah Somaliland xilka koobaad ee guud ahaan saaran xukuumadda waxa weeye badbaadada muwaadinka badbaadadaas oo la xiriira qofka jirkiisa iyo hantidiisa iyo caafimaadkiisa iyo xuquuqdiisa iyo kuwa kaleba marka hay'adaha inoogu jira safka hore ee ilaalinta muwaadinka ay hay'adan ka mid waxyaaba ugu badan soo dhoofino waxaa ka mid ah cunto iyo dawo cuntada iyo dawada tayadooda iyo dhibka ay keeni karaan midna xogayaal uma nihin caalamka intiisa kale cid waliba waxay u leedahay shuruuco iyo habraacyo loo xaqiijiyo ama loo hubiyo tayada iyo badqabka iyo caafimaadka wixii qofku uu quuto inaku ma lihin hadda inoogu horeysaa marka aad iyo aad baynu ugu baahannahay waa arrin aad iyo aad ugu baahannahay runtii haddii qaranka Somaliland aynu nahay sidaynu badbaadinahay muwaadinka waxaa loo baahan yahay markaa ganacsatada iyo hay'adaha dawliga ee arrinkan uu la xiriiro inay gacan siiyaan hay'adda sidii hay'addu ay u xaqiijin lahayd in waxa dibadda inooga imanaya aynu quudanayno ama dawo ahaadaba cunto ahaadee uu yahay mid caafimaad qaba heertayeedkaas ama standardska waxay faa'iido u leeyihiin ganacsiga umaan ku koobaya haddii heertayeed hagaagsan ayna umadi lahayn badeecadaha u soo degaya dhibaato weyn bay shacabka ku haynayaan caafimaad iyo dhinac kastaba
umadina waxna way dhoofisaa waxaad dhoofiso haddii heertayeedkeeda aanad sii baadhinna sumcad xumo iyo baacmashtir xumo yaad kala kulmaysaa walaalayaal tayada waxaa bilaabay nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam ama tayeenta haddaan idhaahdo waayo rasuulku isagoo suuqa dhex maraya ayuu maalmo ka mid ah nin raashin iibinaya oo raashinkii hortiisa yaallo oo tuulan yahay ayuu gacanta nabigu geliyey sallallahu alayhi wasallam dabeetana qoyaan bay gacantiisii gaadhay markaasuu yaa saaxiba tacaam maa haada waa ninkan iibinaya cuntado waa maxay waxaan qoyaankani waa maxay markaasuu yaa rasuulallah asaabatu sama xalay roob baa helayo asaabatu sama yani roob baa kusoo day xalay oo iga darooray oo iga qooyey markaasuu hadda caynkaa tahay maxaad intan qoyan usoo muujin weyday dadka ugu tusi weyday ood ugu qarinaysa xadiis rasuulka caana ayuu halkii ka sheegay wuxuu man qashana falaysa mina qofkana khiyaamaya naga mid maaha yani islaamka ka mid maaha nabigu wuxuu ka anfiyey inuu muuminiinta ka mid noqdo inuu muuminiinta ka mid yahay qofka noocane marka tayada oo la khiyaameeya cuqubada ay aakhiro leedahay waxa weeye horta in diintiisaba halisay ku jirto adduunyadana waa loo ciqaabaya waayo xaq uma laha inuu shay tayo liita oo qof muslima oo walaalkiiya oo maartay macmiil ah inuu ka iibiyo wax tayo xun ama dadka imika waxay la qabsadeen ay yidhaahdaan kana waa number 1kii kana waa number 2kii adduunka lagama yaqaano number 1 number 2 waa qish weeye number 1ku waa number 1 ka kalena waa inuu mid noqonin ama aanu la calaamad noqonin number 1ka waayo calaamadda number 1ka soo haysta ayaa loo leeyahay kana wuu eegyahay marka dhawaankeena waa toogii in la yidhaahdana sharciyan ma banaana wax lagu khiyaameynaya dadka maarta masaakiinta wax magaratada ay lagu khiyaameynaya haddii aanu nahay ganacsatada reer somaliland runtii waxaanu ka ganacsanaa wax xalaala waxa aanu ilaalinaa dadka iyaga laakiin wixii lama ka soo iibsano dibadda adduunyahan ka soo wada iibsano dee laguma wada kalsoonaan karo marka inaynu helno shaybaara casriya oo inaga baadha oo inoo soo kordhay oo wax ilaahay loogu mahadnaqo waxaa kaloo aynu u baahannahay marka aynu iminka furanno berbera corridor ee dib aynu u dhoofin dayno shuruudda koowaad ee lagu xidhayaa waa inay la socoto shahaadada quality control marka mar haddii aynu helay hay-addana waa ku guurinaynaa waanaynu ku mahadnaqaynaa waanaynu kala shaqayn doonaa insha allahu maanta waxaan isla wadiin sharaf somaliland guud ahaan iyo gaar ahaan hay-adaba inay maanta standardskii somaliland aynu ka shaqaynayno oon rajeynayno dhowaan in la launch garayn doono 20 standard oo somaliland ay leedahay oo noqon doona guddiga ama barbilowga hawshaas oon rajeynayo inay sii socon doonto waddan kasta caalamka tirsan wuxuu leeyahay standards isaga u gaara iyo halbeegyo isaga wax ku cabiro oo inta badan sal u ah sidii loo heli lahaa badqabka mujtamaciisa iyo badbaadada dadkiisa marka runtii aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa inta badan somaliland hawsheedu waxay ku dhisan tahay waa dadkeyga commitmentkooda marka waxaad moodaa inaynu aad iyo aad u dadaalayno